cabdiqani maxamuud waa wiil dhalinyaro ah waa 23 jir waxa uu ku nool yahay degmada Woodward ee gobolka Cayn. cabdiqani waxa uu la soo baxay dhacdo aan hore uga dhicin deegaankani Woodward iyo guud ahaan deegaanadan kale iyadoona cabdiqani uu ilkihiisa ku qaadayo kiish haruur oo ka tankiila iyo daawo gaboobay oo kuwa baabuurta waraadada ah. cabdiqani oo markaasi TV-ga Somali News ku booqday gurigiisa ayaa nooga warbixiyay sababta ku kaliftay iyo muddada uu soo waday in uu ilkihiisa wax ku qaado. cabdiqani oo ka warbixinaya waxa uu yiri sida tan: magacaygu marka ugu horeysa waxa la yiraahdaa cabdiqani maxamuud cabdi. arrimaha dhacdooyinka ayaan wax ka qabanayaa inaan soo bandhigo. marka ugu horeysa ilaahay baan mahad celinayaa. marka xigta TV-ga Somali News baan u mahad celinayaa oo aad iyo aad tegmooyinka Woodward iyo nawaaxigeedaba aad uga shaqeeya. annagana na soo booqday oo maxaan sheegay gurigeyga igu soo booqday maanta. cabdiqani wuxuu ilkihiisan ku qaadayaa haruur maxay tahay aad afarta fool ugu qaadayso culays ka inta leh? marka ugu horeysa arrintan hadda iguma kadisa kagama dhigin inaan labadaba soo bandhigo. arrintan ilaa in badan ayaa 2 sano ilaa 2015 ayaan ka soo shaqeynayay sidii aan arrintan aan ugu guuleysan lahaa aan u soo bandhigayay oo aan u raadinayay. marka ugu horeysa kintaalkan raashinka aan ilkaga ku qaaday isaga kama bilaabina waxaan ka soo bilaabay rufuc 12 kiilo. markii aan rufuca aan ilkaga ku tijaabiyay waan ku guuleystay. markii labaad 25 kiilo aan ku eegay oo sokora waan ku guuleystay. markii saddexaad waxaan ku tijaabiyay 50 kiilo oo sokora waan ku guuleystay. waan wada tijaabiyay raashimada 50ga 50 kiilo haruur baa ugu cuslaaday. haruurka ayaan soo bandhigay oo aan dhacdooyinka aan doonayay inaan la aado hadda aan ku soo bandhigay. marka 50 kiilo ayaan markii dambe ku guuleystay inaan ilkayga 4 fool ku qaado. daawahana sidaas oo kale isagana daawo yaro waxaan sheegay sugida gaariga loo yaqaan ama xaajiyada ayaan marka hore oo ka fudud oo shaytaan la ayaan ilkaha ku tijaabiyay waan ku guuleystay. markii dambe daawayaasha waaweyn ee waraadada sida skrooyinka kala ayaan damcayna ku qaado waan ku guuleystay. daawahaas ugu cuslaaday daawayaasha kale hadda aad magaalada yaala isagina waan ku tijaabiyay. daawo ugu cuslaam noqday ma miisaamin laakiin waa daawo ugu culus daawayaasha dadka bas ay yaqaaniin. marka saa darteed baan isagana ugu tijaabiyay waan ugu guuleystay labadaba. waa tahay ilkahan aad ku qaadayso miisaanka culayska inta leh miisaan wax ku yeeleen oo dhibaato aysan kugu keenin? maye niyo wax isbedel iskuma arag. dadku waxay leeyihiin isbedel iyo aad ku xanuunsanaysaa iyo meel baa ku go'aysiyo waxa anu wax isbedel ilaa hadda iskuma hayo. tijaabadana inaan ku guuleystana walbaan inta aan soo waday haddana waan ku guuleystay. arrimo ka badan oo kalena waxaan rabaa insha Allah inaan soo bandhigo haddii Ilaahay ka dhigo. waa tahay ilkaha kugu qabanaya raashinka waa la gartay jawaanku ilkaha uu galaya laakiin seebu birto ilkaha ugu qabata? horta waa farsamo waxaan farsamo qof ka farsamo badan yahay ula yimaada. horta marka ugu horeysa xagga xooga xagga xooga waan adeegsanayaa. qaabka ilkaha aan ugu qabanayana ana uun ogo qalbigayga iyo maartay dareenkayga og saan ugu qabsanayo sidaan ugu qaadanayo. isna waan qaabkayga uun baa soo bandhigay waan ku guuleystay isagana. laba qof walba horta hamigiisa isaga og laakiin anu sidaan qabo arrintan inaysan isku day karin baan qabaa. waayo haybada ilaahay qof walba uu saaraa. waxa weeye anu dhalinyarada waxaan oran lahaa ama bulshada dhalinyarada ilaa laaginaysan isku dayin arrintan anigu sidaan kulay qabo inaysan isku day karin. waxaan ka codsanaya in arrimaha noocan ay igu taageeraan iguna soo daraan insha Allah sidii ugu dhaqsaha badan aan uga qayb qaato insha Allah. dhinaca kale cabdiqani ayaa codsaday in uu isagu ka mid noqdo dadka tartamada caalamka uga qaybgelaya agayga Soomaalida waxaana markasta uu diyaar u yahay inuu sii wado talaabadan iyo hibadan uu eebsiiyay. Sikariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Woodward.